hadalka soo dadadin joona inaan mahadnaq halkan uga soo jeediyay iyo salaan odayga meeyarka magaalada barasaabka gobolka Awdal suldaanada iyo caaqilada halkan fadhiya oo jecelahay kamarada in lagu qabto halkan fadhiya sharafka weyn leh waxa kale oo doonaya halkan inaan ka salaamo oo mahadnaqo musheekhda xildhibaanada wadanka xildhibaanada degmadeenan golaha degmada dadka ka socda baayac mushtariga magaalada Boorama iyo hareeraheeda dhalinyarada dhammaanba reer Hilaac inta halkan maanta joogta ee nala fadhida iyo dadka ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland gees ilaa gees iyo inta dibadda inaga maqanba waxaan dirayaa salaan iyo mahadnaq Thank you. mahadsanidin Hilaac raayigaasi muddo badan ayuu in badan oo naga mida ka dhex buuxay sanado badan ayuu naga dhex buuxay ugu yaraan 5-6 sanadood ee ugu dambeeyay maskaxda nagaga jiray qalbigana nagaga jiray haddii aanu nahay Hilaac barnaamijka waanu soo bandhigi doonaa laakiin maanta waxaan idiin sheegayaa oo qura Hilaac wuxuu u taagan yahay laba amuurood labada amuurood oo ah wadankan jamhuuriyadda Soomaaliland 32 sanadood ee imika inta ku dhaweey ay jirtay wax badan baa la qabsaday waxa badan ee khayrka ah ee la qabsaday oo magaalada Boorana ay u ahayd saldhig u ahayd iyo baroosin in la kaydiyo oo la xafido oo la ilaaliyo alay loo baahan yahay marka Hilaac hadaanu nahay waxaanu doonaynaa inaanu ku ballan qaadno wanaaga wadanka yaala ee la qabsaday in la ilaaliyo oo la kaydiyo talabaad ee aanu u taaganahay waxa weeyi wadankan isbedel xoog leh ayuu u baahan yahay taana waanu u dhaarsanahay inaanu wax badan wadankan ka bedelno haddii kalsoonida aanu idinka helno iyo jamhuuriyadda Soomaaliland inta kale ee ku nool marka waxaanu u taaganahay aan ku celiyo in wax la kaydiyo khayr kale yaalo wadanka la kaydiyo iyo wixii la qabsaday 30 sanadood iyo googo'aas bedel badanna wadankan laga sameeyo bedel badan oo ka hadli doono maanta iyo bariba waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa mar labaad aad iyo aad ayaan dhammaantiinba idinku mahadnaqayaa mar labaadan ku celiya salaadiinta iyo cuqaasha halkan fadhida dhalinyarada halkan fadhida xildhibaanada halkan fadhiya kuwa Hargeysa inoo fadhiya ee jamhuuriyadda xildhibaanada u ah iyo kuwa degmada labadaba u ah iyagana inaan halkan ka salaamo aad iyo aad baad u mahadsantihiin Boorama iyo dadka ku noolna siday noo soo dhaweeyeen buugaag baa laga qori doonaa taariikhdu hadday nagu sinto buugaag baa laga qori doonaa aad iyo aad baan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh